بسم الله اسماعيل ورسمة ديجيتال ميديا ساكا waxaanu ka sheekaysanaynaa sida xal loogu heli karo arinta Soomaaliland waxaan soo jeedinayaa dunidana aysan ahayn inay sharciga jabiso in ururka Soomaaliland loo magacaabo ama loo ictiraafo jamhuuriyadda Soomaaliya sidaas awgeed duniduna ma jabanayso qaanuunka adduunka u dhigan Soomaaliland waa ku adkaanaysaa inay yiraahdaan warlaankayagii noo soo celiya tanayba ugu badisaa marka waxay macna ku fadhida male laankaas dheer mar haddaabad la baxday jamhuuriyadda Soomaaliya sida awgeedna waxay helaysaa wax allaaleeto wixii xuquuq ahaa oo jamhuuriyadda Soomaaliya ay lahaan lahayd sheekadii goonistaaguna halkaas ayay ka baxaysaa dadka Soomaaliland deganna maqsuud ku noqonayaan iyagoo markaas dawlad jamhuuriyadda Soomaaliya oo walaalahood wax la wadaaga sidaas ayaa saaka ku talin lahaa waa fikrad ulama jeedo wax maagida laakiin waxaan sheegayaa in loo baahan yahay in la fakaro oo lagu fakaro wax kasta oo suuragal ah oo arinta lagu dhameeyo aad baa u mahadsantiin waa